ciidamada dalalka Masar iyo Eritrea oo qayb ka ah ciidankii ama dowladihii ugu horreeyay ee taageero lama filaan oo muujiyay Soomaaliya markii uu soo shaabaxay heshiis beeneedka Itoobiya ay la gaartay maamulka Somaliland ayaa awoodihii ciidan ee ugu badnaa u diraya gobollada Awdal iyo Saylac ee gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Go'aankan ayaa mid xasaasi ah oo dowladda Soomaaliya ay ku gaareen heshiisyo dhinacyadan, taas oo ka dhanay Itoobiya islamarkaana lagu fashilinayo iskudayga xabashida ay ugu xanqaltaagayaan helitaanka qaybo ka mid a marinada muhiimka ee badda cas ee Soomaaliya, iyagoo marmarsiya ka dhigtay inay Somaliland tahay dowlad gaar ah ama ay u aqoonsanayaanba. Taasi waxaa ka dhashay tillaabooyin la qaado oo diblomaasiyadeed oo Itoobiya fadeexad iyo ceeb weyn u horseeday, niyad-jab culus ku abuurtay laguna hanjabay ilaha dhaqaale oo helo ama gargaarka la siiyo Itoobiyaanka. Abiy Axmed si degdega looga noqon doono. Tani ayaa soo dedejisay inuu go'aano kala qaato oo si degdega uu kaga noqdo heshiisyadaas, iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya mar kale ay ku bahdishay xabashida magaalada Nairobi kadib markii kulamo la isugu ballamiyey ay diideen la kulanka dhinacyadaas ilaa inta ay mowqif cad ka soo saarayso xukuumadda Addis Ababa oo ku aadan ka tanaasulitaanka heshiiskaas, balse waxa ay doonayeen kulanka folkafoolo arrimahan looga dooda. Soomaaliyana waxay tilmaameen dhinacyada diblomaasiyadeed ee matalayay in dal iyo bad ay leedahay Soomaaliya aysan Itoobiya kala doonin, aragtida taalana ay tahay inay xadgudubka ay ku kaceen ay xilligan raaligelin ka bixiyaan, taas oo sababi karto in laga wada xaajoodo waxa dan u ah labada garab. Tillaabooyinka la qaada ayaa horseed u noqda mar kale inuu Abiy Axmed dhabarka looga toogto, taas oo horseed u soo dedejisay in wadamada cadowga u ah ay Soomaaliya saaxiib dhow la noqoto. Dalalka Masar iyo Eritrea waxay xilligan qaadayaan ama saameyn togan bay ku leeyihiin dagaalada gudaha Itoobiya ka holcaya. Si gaar Eritrea ciidankeeda ayaa ku sugan gobolka Amxaariya iyo sidoo kale Tigreega. Taasina Abiy Axmed kama hadli karo oo asiga waxa uu diyaarsaday awoodo dheeraad ah oo ka dhanay Itoobiya markuu soo shaabaxay damaacigiisa ku wajahan biyaha cas ee qaadashadooda. Si gaara Casaba ayaa taargad u ahayd, balse culayska jira awgeed ayuu dhanka Soomaaliya ugu jarjaarsaday. Wararkii ugu dambeeyey waxay tilmaamayaan ciidamada Masar iyo Eritrea oo isku dhafa oo ay weheliyaan ciidankii ugu badnaa ee Soomaaliya oo tababaro kala duwan labada dal ku qaatay inay si degdega ku gaarayaan Awdal iyo Saylac. Ujeeddada laga leeyahan ay tahay helitaanka saldhigyo militari oo xooggan oo halka ay ka samaystaan si looga ugaarsado xabashida xanqaltaagga ugu jira xeebaha gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Xogtii ugu dambeysay ayaa tilmaamaysa inay tillaabadan ay tahay mid saameyn dhinacyo badana ku yeelanaysa Itoobiyaanka, horseedna u noqonayso inuu fashilmo wax kasta oo isku daya oo xabashida u xanqaltaagaysay. Eritrea iyo Masar ayaa waxa ay si guud mar kale isaga kaashan doonaan howlgallada Awdal iyo Saylac, waxayna Soomaaliya ka heli doonaan saldhigyo gaara. Si gaara Masar ayaa saldhigeeda ugu weyn ka furan doonta gobolka Galguduud, xuduudaha uu dowlo la wadaaga. Taasina waa marin ee dhaqdhaqaaq togan ku yeelan karto, iyo waxa ka socda gudaha Itoobiya xaduud beeneedka ayna si toosa ciidamada sirdoonka Masar uga shaqayn karaan. Guud ahaanba wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya Saylac iyo Awdal waxay tilmaamayaan in la abaabulayo dhanka kale ciidamadii ugu badnaa ee beelaha degan halkaasi dagaalo ka dhana loola galo hogaamiyaha fashilme ee maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo haatan mar kale afka ciidda loo daray damaacigiisii guracan ee badda Soomaaliya uu ku iibinayay. Guud ahaanba wararkii ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya in dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda markii horeba garabka diblomaasiyadeed iyo taageerada dhaqaale iyo midda militari u muujiyey in ay qaateen go'aano wada jira. Masar iyo sidoo kale Eritrea waa mid ka mid a dowladaha cadaawadda ugu culus ee u haya xilligan Itoobiya, doonaya inay ka faa'iidaystaan fursadda jirto siina socota xiisadda gobolka, iyagoo u arka inay haddii dagaal la galaan ay tahay halkii lagu baabiin lahaa Itoobiya. Xabashida way fakaraysaa oo waxay xilligan tilmaameen inaysan mustaqbalkooda ku cayaari karin, sababna u noqon karin baabi'inta dal iyo dadkooda, taasi oo soo dedejisay inuu qaato go'aano ka duwan kuwii hore. Abiy Axmed una soo noqdo miyirka. Dagaalka diblomaasiyadeed ee ka dhanka Itoobiya iyo Soomaaliya guulo waaweyn ku gaartay, waxaana lagu fashiliyey wax kasta oo isku daya oo Itoobiyaanka ay wateen. Dowladdana waxay xaqiijisay guulo waaweyn oo taariikhiya oo sabab noqday in la soo gabagabeeyey aragtiyadii iyo hawlgalladii guracnaa ee Itoobiyaanka. Si kastaba ha haatee, dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka duulaysa ilaalinta madax bannaanida iyo mabaadi'da dalka inaysan mid kale ku soo xadgudbin iyadoo la cuskanaya xeerarka caalamiga ah, ayaa u diyaargarowda dagaal ka dhana oo barri iyo bid ay ku difaacatay xilligan, taa oo horseed u noqonaya mar kale sida Itoobiya afka ciidda looga daray oo Soomaaliya u ah cadowga labaad. Awdal iyo Saylac ciidamadan dheeraadka ee gaaraya ayaa ah kuwo mar kale u qoosgoonaya Itoobiyaanka oo aaggaas ka agdhow, islamarkaana suurtagelin karin inay qaadaan dagaal ama weerar deegaanadaasa, taas oo soo gabagabaynaysa mustaqbalkooda. Si kastaba ha haatee, mid ka mid ahaa dagaaladii ugu cuslaa ayaa gudaha Itoobiya ka socdo, waxayna dad badan oo arrimaha gobolka ka falaqooda ay qabaan in waxa xilligan Abiy Axmed dhabarka ka tooganaya ay tahay wadamada deriska ah ee iskaashiga xooggan ku dhawaaqay. Kenya oo laga xarf furto oo Masar ee casuumta madaxdooda iyo wasiirka gaashaandhigga
iyo sidoo kale Soomaaliya oo xiisadii ugu cuslayd kala dhaxayso Eritrea oo gudaheedaba ka dagaalamaysa oo jamaadaha hubaysan gacan siinayso waa kuwo ka mid ah arrimaha isku xilligan darsaday. Abiy Axmed wuxuu dariskiisa ka dhigtaa cadow, waana hogaamiye u adeega reer galbeedka oo aragti aan sii dheerayn aan lahayn ayay qabaan dhinacyada gobolka ka falaqooda, taas oo sabab u ah inay dadkiisi macluul u dhimanayaan, dagaallo culus dalkiisa uu ku jiro, ilaa iyo haddana ku faanaya in Itoobiya ay barwaaqo tahay iyo dal xilligan horumar samaynayo. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tira dhowr jeer waxa uu bahdilkii ugu cuslaa ku sameeyey hogaamiyaha dhanka Itoobiya kadib tan iyo markuu soo shaabaxay heshiiskaasi. Xasan Maxamuud waxa uu meesha ka saaray la kulanka Abiy Axmed iyo inay si toos isku horfadhiistaan wax wada hadal uu dhex maro tan iyo intii Itoobiya ay si cad uga noqonaysay heshiis beeneedka ay la galeen gobollada waqooyi ee Soomaaliya ee Somaliland. Si kastaba ha ahaatee, go'aanada dowladda federaalka ee Soomaaliya waa hirgelinta qorshaheeda ku aadan ilaalinta bad iyo berri ee dhulka Soomaaliyeed iyo in xilligan loo qoysgeeyo xabashida ee doonaysa deegaanadaasi, iyadoo oo marina xaaraana u marayso wax heshiis aan la gelin dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dalka iyo dhulka mas-uulka ka ah. Wararkii ugu dambeeyey go'aanada gobollada Awdal iyo Saylac ee beelaha Samiroon iyo Ciise waxaa socda qorshihii kama dambaysta ee ciidamada dheeraadka ee isku dhafyada dowladahaasi loo gaarsiin lahaa iyadoo maraakiibta dagaalka aaggaas ee Turkiga ay ka ag sugan yihiin. Sidoo kale waxaa socda dhismaha maamulka Awdal State oo ka mid noqon doona maamulada ka jira gobollada dalka, taasoo horseed u noqon doona in lasoo gabagabeeyo mashruucii dheeraa ee maamulka Somaliland muddo uu ku qaraabanayay, balse haatan albaabada loo laabay. Dhanka Muuse Biixi Cabdi waxaa lagu soo jeediyey indhaha caalamka waxaana la saaray cunaqabateyn xooggan. Si cad ayuu u sheegay in Somaliland lagu qaaday dagaal dhaqaale, mid siyaasadeed iyo guud ahaanba mid aysan heshiis ku geli karin, aragti midaysan iyo mowqif iyada u gaaran aysan lahayn, isagoo qirtay jabka culus ee loolanka diblomaasiyadeed ee gobolka oo sababta u ah uu kiciyo ka soo gaaray. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya ayaa markaan guulo waaweyn ka gaaraysa Itoobiya. Dagaal lama jirta iyo xabashada xilligan ku qaadi karta baddeenna, waana midda sababta in Itoobiya si kala laabasho lahayn kaga noqoto go'aanadii beeneedka ay gaareen.